Dunidu cimiladeedu waa ay kala duwan yihiin. Meelaha qaar waxaa ka jira kuleyl tiro badan, halka meelaha qaarna uu ka jiro qabow aad u fara badan. Goobaha qaarna waa dhexdhexaad. Mawduucan waxaa ku soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah goobaha ugu qabow caalamka. Prospect waa deegaan ku yaala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka, waxaana hore u ahayd goobtan goob laga qaado sahanada hawada iyadoo ay degganaayeen dad lagu qiyaasay 125,000 oo ruux. Goobtan waxaa loo aqoonsaday inay tahay goobta ugu qabow guud ahaanba dalka Mareykanka. Tusaale ahaan, sanadkii 1971 waxaa la xaqiijiyay in qabowgu halkan uu gaaray -62 digrii. Goobtan waa meel laga soo saaro naftada iyadoo ay markii hore ay dhibaato kala kulmeen shirkadaha ka soo saara naftada, taasoo ah qabowga xad-dhaafka ah ee goobtan ka dhacaya inuu sababo inay naftadu ku barafowdo gudaha tuubooyinka. Magaalada Fairbanks ee Ruushka. Magaaladan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa goobada Stirling ee geerida, waxayna ka mid ahayd goobihii ay adeegsan jireen xukunkii Soofiyeetka, wuxuuna Stirling hogaamiyaha Soofiyeetka mucaaradkiisa u soo diri jiray halkan si ay u maraan ciqaab adag oo ah qabowga daran ee yaalla goobtan, ayagoo ugu dambeynna u geeriyoon jiray qabowga xun ee ka jira goobtan. Magaaladan waxay ka mid tahay goobaha ugu qabow dunida. Kazakhstan waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qabow caalamka. Qabowga waddankan wuxuu gaaraa -60 digrii. Intii aan baarayay wax ku saabsan mawduucan, waxaan arkay muuqaalo laga soo duubay Kazakhstan oo cajiib ah. Haddaba daawasho wacan. Deegaanka Oymyako, Ruushka, waa deegaan yar oo ku yaala gudaha Siberia. Waxay 350 kiiloomitir u jirtaa waqooyiga qaaradda Antarctica, waana goob caan ku ah dahabka, naftada, gaaska, qalinka iyo luulka. Guud ahaanba luulka adduunka yaalla 23% ka mid ah waxaa laga soo helay halkan, laakiin waa goob qabowga jira uusan sahlayn in si fudud loo tago. Haddaba heerka qabowga halkan wuxuu gaaraa -77 digrii. Ugu dambeyn, waxaan hadda ku soo gudbinayaa xudunta qabowga adduunka, waxaana lagu magacaabaa Dome Aregus. Waxay ku taallaa galbeedka qaaradda Antarctica. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay goobta ugu qabow caalamka. Heerka qabowgeeduna wuxuu gaaraa -92 digrii.